waa war degdega daawadayaal hoggaanka maamul goboleedka galmudug state ayaa go'aan adag ka soo saaray guddiga doorashooyinka hase ahaatee hoggaankaasu qalad weyn ayuu sameeyey oo ah ku dayasho maamul goboleed kale ila dhegeyso war-saxaafadeedka taariikhdu ay tahay 15 bisha Juun 2026 waxaan halkan idinkaga soo gudbinaynaa war-saxaafadeed ku aadan mowqifka dowladda galmudug. dowladda galmudug waxay mar kale cadeynaysaa mowqifkeeda ku aadan qabashada doorasho. saaxiibayaal waa ka qaladku dalka hal dowlad ayuu leeyahay dowladda galmudug maahan ee waa maamul goboleedka galmudug in la yiraahdo waa qalad oo waxay muujinaysaa goosasho iyo madax bannaan waa qalad oo waa ku dayasho waan laga horreeyay waa kana hogaamiyaha maamulka Puntland oo banaanka la taagan dowladda Puntland waxay si dhow ula socotaa waa ka saaxiibayaal hoggaanka talada kasii degaya ee reer galmudug waxaa laga rabay hal abuur mideeda kale guddigani guddi la didi kara maba ahanba guddi laba joojiya la dhahaa sheekadii lafta gareen oo jiqda la gelayay ayaa ninkii diida ku dambeynaya guddi laba joojiye iyo madaxweyne qoorqoor food ayay isdareen isha ayaanu ku hayi doonaa halka ay ku dambeyso si aad ula socoto laygareeya oo shargareeya muuqaalkan soona falgareeya beejka maxamed cali maxamed anigu ah maxamed cali